magaalada Coosweyne waxaa aas-aasay nabadoon Cali Ciid Culusow oo ka dhisay gurigii ugu horeeyay. magaalada Coosweyne ee dhacda bari galgaduud muddo 2 maalin ah waa xor ku sugan ciidamada macawisleyda iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya. balse ma ogtahay muwaadin inay jirto laba Coosweyne maxay tahay sababta ay u jirto. waxaan kaloo barnaamijkan kuugu bilaabin doonaa Coosweyne ma waxay hoos tagtaa Derri sida uu sheegay xildhibaan Jacfar mase waxay hoos tagtaa degmada Ceeldheer sida uu sheegay xildhibaan Yaasiin Fari. barnaamijkan ayaan kugu faahfaahin doonaa barnaamijka sheergaray leeg nasaar haddii aad ka heshay. magaalada Coosweyne waxaa aas-aasay nabadoon Cali Ciid Culusow oo ka dhisay gurigii ugu horeeyay. magaaladu waxay sheer u ahayd laba qabaa'il oo halkaas la dego oo walaalo ah, Murusade iyo Wacaysle. Murusade waxay degnaayeen qaybta galbeed ama qoraxsin, dhanka barina waxaa degnay beesha Wacaysle. laba ceel ayaa labada dhinac magaalada uga tiilay, waxayna ahayd awood qaybsi berisamaadkii. barigii Siyaad Barre gudoomiyaha koowaad ee magaaladaasi wuxuu ahay nabadoon Cali Ciid Culusow oo ah aas-aasihii degmada Coosweyne. gudoomiye labaadkana wuxuu ahay Gaabow oo dhashay beesha Murusade. nabadoon Cali Ciid Culusow wuxuu ahay beesha Wacaysle. 97 ilaa 98 dagaalo qabaa'ileysan ayaa ka dhacay labada beelo walaalaha magaalada way ku dagaalameen. Coosweyne waa la gubay, labada ceel waa la gubay, waana lagu kala guuray. meel ugu yaraantii dhanka bari kaga aadan 10 kiiloomitir ayaa beesha Wacaysle waxay ka dhisteen Coosweyne cusub, ceelna way ka taagteen. muddo 12 sano ka bacdi markii xukunka al-shabaab oo halkaas gaaray, beesha Murusade ayaa ku soo laabatay dhankoodii qoraxsime ee magaalada Coosweyne qadiimiga ahayd, ceelkoodina dib u qodatay. sidaa awgeed waxaa jirta Coosweyne qoraxsime ee qayb ay ka digan yihiin Murusade, qaybta Wacaysle ay haawanayso. tan kale waxaa muran ka taagan yahay Coosweyne ma waxay hoos tagtaa Ceeldheer mase Ceelbuur. xogaalka aan wareystay waxay ii sheegeen berigii Siyaad Barre in la saaray kiiloomitir Ceeldheer iyo Ceelbuur. magaaladan waxay u dhowdahay Ceeldheer, sidaa awgeed waxay hoos tagtaa degmada Ceeldheer. maanta ka bacdi ayaan lagu ka hadoomin. hadda magaalooyinku waa bateen, degmada Derri, degmada Galcad iyo waxyaabo badanaa jira. laakiin berigaas waxaa awood lahay degmada Ceeldheer iyo degmada Ceelbuur. waxaa jira wax la dhahaa kiiloomitir oo la saaro magaalada Teewdhow, kiiloomitirkiina waxaa u dhawaatay degmada Ceeldheer. sidaas awgeed Coosweyne waxay si toos ah u hoos tagtaa maamulka degmada Ceeldheer. nabadoon Cali Ciid Culusow Allah u naxariistee hadda waa uu dhintay, waxa weeyaan aniga awowgay. saas ayana taariikhda haaf ka mid u helay. wax ka badan haddii aad ogtahay muwaadin taariikhda Coosweyne igula soo wadaag commentiga. aad u mahadsantihiin.